الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أولا أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan axbaabta insha allahu subxaanahu wa tacaala waxaan meeshan ka soo jeedin doonaa muxaadaro ku saabsan iskaga digidda ciidda gaalada happy new year insha allahu subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, sidaad ogsoon tihiinba annagu waxaan nahay dad muslimiin ah oo ahlu iimaan ah. noolama ogolo inaan gaalo raacno amaan isku ekaysiinno ama wax ay sameeyaan aan samayno. noolamana ogolaan doono, ilaahayna nooma ogolo, rasuulka nooma ogolo subxaanahu wa tacaala. nabigeenni udgoonaa xadiis uu warinayo cabdullaahi ibni cumar, nabigeenna wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam: man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum. qoom qofkii isku ekaysiiyo ayaga ayuu ka mid yahay, ayuu yidhi nebiga calayhi asalaatu wassalaam. tafsiirka xadiidka waxa weeye qofkii raaco qoom ficiladooda ama aqwaashooda ama dharkay xiranayaan ama caadaadkooda, oo hadda tan bay ka mid tahay, ama maye waxa weeye say wax u cunayaan wax u cunahayaa, say wax u cabhayaan wax u cabhayaa, hay-aadka ay la yimaadaanna wuu la iman. qoomkaas ayuu ka mid yahay ayuu yidhi nebiga calayhi isalaatu wassalaam. oo yacni waxaa laga wadaa qoomka ayuu ka mid yahay, waxaa laga wadaa xukunka qoomkaas saaran uba asagana loo xukminahayaa. hadday yihiin ahlu fisqi ama kufri, haddii ahlu fisqi ahlu kufri an buu ka mid yahay, wuxuuna la kulmayaa wax alla waxay la kulmaanoo cadaab ah inta uu isku ekaysiiyey ahlu fisqi ahlu kufrigaas weye, iyo inta uu u qasday isku ekaysiintooda. hadday yihiin dad wanaagsan oo islaam ah oo waxa weeye ahlu khayr ahna waxay kulansadaan oo naciimillaahi casa wajal ayuu kulansanhayaa weeye. marka xadiidkan waxaa ku sugan inaad arkaysaba iskaga digid la iskaga digayo in lagu daydo gaalada iyo faasiqiinta iyo cisyaanta, iyo isku hanuun la isku hanuunahay in la isku ekaysiiyo ahli iimaan iyo taaca, ahlu taaca waaye. labadaasba xadiidkan way ku sugan tahay, waxaana ay ku taallaa sunanu saxiix abi daa'uud. marka xadiidkaa sida noo muuqato walaalayaal waa xadiid aad u cajiibsan, waana saxiix nabiga laga warinaya calayhi salaatu wassalaam. marka waxaa la doonayaa walaalayaal inaan ka fogaanno ciidda ay u bixiyeen happy new year ee christmaska. waa inaan ka fogaannaa oon iskaga tagnaa, maadaama ay tahay wax gaalo ay leeyihiin. maxaa yeelay waa hawl gaal u wato weeyaan. dee wuxuu gaal wato see loo samaynayaa, see gaal loogu dayanaya adoo muslim ah oo ahlu iimaan ahoo nebigaada nebi maxamed u yahay calayhi salaatu wassalaam? sideed oogu dayanaysaa gaal oo ilaahayna ka furtay rasuulkana ka furtay sala allahu calayhi wasalam? nabigeenna xadiid uu warinahayo abi saciid alkhudri radi allahu tacaala canhu can nabiy sala allahu alayh wasalam qaal, nabiga wuxuu yidhi waxay raacayaan kuwii naga horreeyey, kuwii ayaga ka horreeyey waddooyinkooda, taaka taaka iyo dirac dhudhudhudhud. hataa hadday garaan abeese godkeeda way ka dabagelhayaan buu nabiga calayhi
الصلاة والسلام kuwaasna wuxuu ku tilmaamay yahuudi nasaara nabiga calayhi salaatu xadiiska bukhaari aan warinaya marka gaal inaa isku ekaysiiso wadooyinkiisi aad raacdo hadda waa halaag way halaag ku soo dilay soo maa halaag way halaag ku soo dilay waxa dhibkaas taada halaag ku soo socdo weeyaan haddaan iskaga daba teginna waa halaag laga shalaayi doono ilaahay kugu dhaatay adiga oo nabigaada uu yahay nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam khalqillaahi sidee ugu dayanaysaa gaal xun oo caabudaya xayawaan ilaah ka dhiganaya xayawaan ama bini aadan ilaah ka dhiganaya subxaanahu wa tacaala ilaahigiisa ka dhiganayo waxaa weeye xayawaanka ama bini aadamkaas sideed ugu dayanaysaa miyaadan lahayn damiir muslim miyuuna kugu jirin iimaan iyo akhlaaqiyaad miyaadan tarbiyo lahayn miyaadan ka baqaynin allah subxaanahu wa tacaala inuu ku caroodo oo miyaadan ka baqaynin carada ilaahay subxaanahu wa tacaala inay ku dhacdo oo sidaas dhibaato ay kuu soo gaarto kama baqaysin miya marka walaalayaal waxaan insha allahu tacaala iskugu naseexaynaynaa inaan ka fogaanno sanadkaas iyo dabaaldegiisa oo aanan facebookyadeenna iyo whatsappyadeenna iyo youtubadeenna aanan iska dhigin oonan uga dabaaldegin gaaladaas iyo waxa la midka ah walaalayaal ilaahay aan ka cabsanno ilaahayna aan caabudno gaal iyo qurunkiisaan iska xirno insha allahu subxaanahu wa tacaala intaas ayay kelimadayda ku saabsan tahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam